kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal idilhaantiin baa kusoo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku eegi doono farqiga u dhexeeya waxbarashada dadka baahiyaha gaarka qaba ee dalka Kenya gaar ahaan qaxootiyada ama dhanka qaxootiga iyo sidoo kale dalka Soomaaliya. barnaamijkaas ayaan inta badan dabcan aan faaqidi doonaa. waxaa barnaamijka qaybigana ah Cabdisalaan Maxamuud Shire oo kamid ah markaasi dadka baahiyaha gaarka qaba. waxa uuna markaasi yahay dadkaasi u ololeeya oo in badan markaa u hadla oona wacyigeliya dhalinyarada markaa baahiyaha gaarka qaba siday wax ku baran lahaayeen iyo guud ahaan sidii ay markaa ku horumari lahaayeen iyo qaabka ay markaa ku heli lahaayeen maqaamyada kala duwan ay markaa ama meelaha ay hiigsanayaan dhalinyaradaasi. Cabdisalaan ayaa inta aan markaa Cabdisalaan soo dhaweynin waxaa dabcan barnaamijkan aad ka daawan doontaan janalada Halgan Shacab Media iyo Rajasida oo aad si wada jir ah markaa uga daawan doontaan. anigoo ah Cabdirasaaq Wadani ayaa markaa barnaamijka idin qaada dhagaya. Cabdisalaan ayaa qayb gala. Cabdisalaan ayaa marka hore soo dhaweynaya. Cabdisalaan soo dhaw. Cabdirasaaq waa mahadsan tahay runtii waana barnaamij aad u qurux badan oo ay u baahnayd in laga hadlo. waayahay Cabdisalaan wuu mahadsan yahay waa uga mahadcelinayaa mar labaad. dabcan Cabdisalaan bal marka hore waxaad faahfaahin guud naga siisaa waxbarashada dadka baahiyaha gaarka qaba. mar labaad iyo mar saddexaad waa ku mahadcelinaya Cabdirasaaq. aad baan u mahadsan tahay. markii laga hadlo waxbarashada dadka baahiyada gaarka qaba ama dadka naafada ah guud ahaan markii laga hadlo naafada waa runtii aad bay u badan tahay oo hal qayb ma aha waxay isugu jirtaa noocyo kala duwan aragga dhegaha gacmaha lugaha xataa waxaa jira kuwa aragga iyo dhegahaba isku jira. soomaalidana way la yaabi doonaan oo dadkaas say wax u bartaan iyo waa la isweydiin doonaa taas waa u tegi doonaa. xitaa dadka dhanka maskaxda ah dadka waxay ku tilmaamaan dad waalan laakiin waxaa lagu tiriyaa oo xaqiiqa ahaantii ay ka tirsan yihiin dadka naafada ah weli bal ayagaaba ugu daranba qofka naafa markii la dhaho maskaxda unbuu naafa ka noqdaa ma ogi qofka intiisa kale naafa ma aha. waa gartay waayahay muxuu yahay markaa farqiga u dhexeeya haddii aan dabcan sii guda galno mawduuceena barnaamijkeena uu quseeyo farqiga u dhexeeya dadka baahiyaha gaarka qaba markaa dabcan wax ku barta ama wax kasoo bartay dalka Kenya gaar ahaan qaxootiga markaasi ama barakacayaasha dalkaasi Kenya dadka Soomaalida ee ku nool dadka baahiyaha gaarka qaba wax kusoo bartay iyo kuwa gudaha dalka wax ku barta. waa mahadsantahay runtii waa su-aal aad u muhiim u ah. farqi ahaan marka aan aragno waxaan ku horumaraynaa kuwa wadanka gudihiisa wax ku barta. markii aan fiirno kuwa gudaha wadanka wax ku barta runtii wadanka xaaladiisa unbay la socdaan waxbarasho aan kala fiiriyo. aniga Cabdisalaan ahaan ma aaminsani in ay jiraan waxyaabo u ogolaanaya in ay bartaan waxbarashadooda ay 100% ay dhamaystirtaan. waxaa jiro qalab wax lagu barto qalabkii oo dhammaystiran 100% wadanka lagama helayo. ardayda waxbarata ee u dhawar adeegtay in ay himiladooda ay gaaraan ama riyooyinkooda ay ka dhaweeyaan runtii meel walbo ay maraan iyo tallaabo walbo ay qaadaan himiladooda ama riyooyinkooda way ka dhaweeyaan. inkastoo hadda ay jirto ma ogi in gudaha magaalada Kismaayo ay jiraan jaamacadaha haddii ay jiraan way yar yihiin laakiin waxay u badan yihiin jaamacadaha magaalada Muqdisho. hataa iskuulada dadka baahida gaarka qaba ay wax ku bartaan waxay u badan yihiin gudaha magaalada Muqdisho. dhankaasi markii laga fiiriyo jaamacadaha hataa kuwa markii ay ku biirayeen dadka baahida gaarka qaba iskuuladii waa iska caadi oo waxaa wax ka dhigo macallimiin naafa ah. maamulayaashooda xitaa waxay u badan yihiin macallimiin naafa ah xaggaa wax caqabad kama taagno. jaamacadihii markii aad ku biiraysid waxaa lagu weydiinayaa hataa kuwa qaar way kula yaabayaan oo maxaynay ku leeyihiin farsamadii ama qaabkii wax lagu bari lahaa dadka baahiyada gaarka qaba agabkii marka loogu talagalay. dadka aragga la dadka qaar waxay ku leeyihiinba dadka aragga la iyo dadka dhagaha la wax ma fahansiin karnaba. su-aasha Cabdirasaaq waxay ka tagan tahay dadkaasi miyaysan ahayn dad bini aadan ah wax la bari karo miyaysan ahayn dad
u baahan dadka walaalahooda meeshii ay gaareen dad ay rabaan in ama la rabo in ay gaaraan miyaysan ahayn su-aasha wataa waya